Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan waa qaalin media oo idin leh maalin wacan nebiga ku saliya sala allahu calayhi wasalam maanta waxaan idin haynaa war-saxaafadeed ee wada qabteen madaxweynaha dalka Uganda iyo dhigiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu hogaaminayay wafdi ballaaran ee la socday iyaga oo u tegay halka ujeedooyin fara badan ay ka mid tahay dayactirkii safaaradda Soomaaliya laakiin intaasi oo dhan laba dal ee xiriir ka dhexeeya waa ay dhexmari karayaan tan la yaabka leh ee ama kaaga ku noqotay shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdooda ayaa ahayd in uu madaxweynaha dalka Uganda si fagaare ah oo war-saxaafadeed aan qarsooneen ku fadeexeeyay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa iyaga oo is-hor fadhiya weliba sida aad hadalka khudbadda aad ka maqli doontaan madaxweyne Museveni ayaa ka jawaabay codsigii madaxweynaha oo ahaa in uu ciidamada Soomaaliya mushaar ku caawiyo laakiin Museveni waxa uu yidhi aniga technicalka xagga khibradda dagaalka iyo tababarkaba ciidanka waan idinka caawin karaa laakiin mushaar mid aan awoodno ma ahayn intaas kuma uusan soo koobin hadalkiisa sidoo kale waxa uu yidhi hub xitaa waa idinka taageeri karnaa haddii aad haysan iyo sidoo kale dhar iyo cuntaba laakiin iyo sidoo kale dhar waa idinka caawin karnaa iyo cuntadaba waan isla qaybsan karnaa laakiin mushaar ma ka bixi karno walaalayaal intaas wuxuu sii sheegay in Soomaaliya uu yahay dal qani ah ee uu isku filan yahay asaga keligiisaba tusaale ahaana wuxuu yidhaahdo waddan walba wuxuu u baahan yahay inuu yeesho waxyaabo oo udub dhexaad u ah taasoo ah dhaqaalaha dalkiisa in uu dhiso laakiin Soomaaliya dhaqaalaha dalkeeda way dhisi laadahay sidaa awgeedaana dalal kale mushaar kuma caawin karaan sidoo kale weli wuxuu ku dara halkaas haddii aad mushaar doonaysaan in oo nagala caawiyo anaga awooddeena ma aha ee waxaad u doorataan Imaaraadka iyo Turkiga wallahi waa arrin aad u naxdin badan iyada oo fagaara sidaa loo galaya taa waxaa kasii daran in sumcad xumada iyo ceebta ee iyadana u taalo ummadda Soomaaliyeed meel walba ee caalamka ay ka joogaan Allah subxaanahu wa tacaala sida aad ogtihiin walaalayaal waddankeena wuxuu ku gadaleystay ama hodantinimo uuna siiyey oo ah bad dhirkeeda inta uu la egyahay aan lasoo koobi karin xoolaha ayaa ka mid ah beeraha ayaa ka mid ah haddana xaaladda aan ku sugannahay waa xaalad aad arkaysaan marxaladda aan marayna mid laysbarbar dhigi karayo hodantinimada aan haysano iyo xaaladda aan ku jirno maba ahaba alla xaqa hana tuso macnaha Englishka waad fahmaysaan qofkii sharaxaad dhammaystiran rabana hoos commentiga ha noogu soo qoro asaga oo turjuman ayaan idin soo dhigi doonaa daawadayaal idinkoo mahadsan intii subscribe hore u saartay like-ta iyo share-ta noogu dadaala qofkii cusub ee channelkeena Qaalin Media kusoo biirana waxaan ka codsanaynaa subscribe-ka asagana inuu inoo saaro nabiga ku saliya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin intii kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo Chadu and so on. And our strategy was a volunteer army, followers of our ideology to volunteer to fight and build strength. So that's how we were able to build strength and eventually government army or no patriotism ideologically, but volunteer army, no salary. Because you see, now when I came to Somalia, Sharif and Farma, they had introduced salary. How will you manage? Because you don't have, if you don't have
a state, or you have a weak state, how will you get money to pay enough numbers? Because Somalia is a big country. It is 3 times the size of Uganda in land area. So you cannot control it with the numbers of 10,000, 20,000, even 40. I think Somalia, you may need a 80,000 maybe. But how will you pay those if you don't have a state? So our hope was, and even now, I told these people that we can help Somalia to defeat this, because if it is a question of weapons, we can buy them and give them. Uniform, we can buy, even food we can share. But what we cannot manage is salary. Every month. Salary every month of big number, we can't manage. So once you say salary, then you now go to UAE, they pay 1 month, then here Qatari, I don't know what, Turkey, what? So when will these people get security? When will you get security? Because you need security. If I'm a poor man, I don't have money, but I can defend my home. I can mobilize my son and my brother, and we defend our home. Nobody is paying us. We want peace. So this is what I tell these people. I don't know whether they tell you when they come. Have you told, did you tell? Yes. They don't tell, they hide. Mm-hmm. So really, this has always been and also I had talked to in-law, Dija, that why don't you mobilize Somali students? Mobilize them on you are tied down with Hawiya, the other, Isaac, Darod, Siad Bari, the other one, Ruhar something. I had one of my supporters here, the lady, I no longer see her, she was here. Saredo, yes. Here. No, she's not here. She's in Mogadishu. But she still lives here. No, she's in Mogadishu. She was there yesterday. Mm-hmm. Yeah. oo idin leh nabadgelyo.